waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno Cabdiraxmaan Jaamac wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Galmudug oo aan ka waraysan doono arrimaha warfaafinta iyo shaqooyinka wasaaradda horyaalla kuwooda ugu muhiimsan iyo kulamo ay wasaaraddu dhawaan la yeelatay wariyaasha ka howlgala magaalada Gaalkacyo gaar ahaan wasiir ku xigeenku uu la yeeshay arrimahaas ayaan ka waraysan doonaa wasiir ku xigeenka iyo qodobo kale wasiir ku soo dhawaad waraysigan gaarka ah aad baad u mahadsantahay awoowe adiga iyo dhammaan maamulka TV-ga qaranka waa mahadsantahay marka ugu horeysa inkastoo wasaaradda aad ku cusub tahay hadda oo xilka dhawaan lagu magacaabay isla markiiba kulamaad bilowda la yeelanaysid wariyaasha gaar ahaan wariyaasha magaalada Gaalkacyo kulamadaas haddii aad faahfaahin ka bixisid maxaad ka wada hadasheen wariyaasha Galmudug waa tahay horta howlaha shaqo ee naloo igmaday markaad eegtid wasaaradda warfaafinta Galmudug waxaad la socotaa in baahiyaha ka jira warfaafinta Galmudug ay aad u badan tahay hadday ahaan lahayd dhinac kasta maamulka markii naloo igmaday hawshan waxaan ku fakiray in aan kulamo la yeesho wariyaasha ku nool deegaanada Galmudug meel kastoo ay joogaan hadday ahaan lahayd kuwa ku nool gobolka Mudug iyo kuwa ku nool gobolkan Galgaduud intaba safar shaqo oo dhawaan aan u tagnay magaalada Gaalkacyo ayaa ii suurtageliyay in aan la kulmo wariyaasha ku nool magaalada Gaalkacyo isla markaana aan ka waraysto xaaladooda dhabta ah iyo saxaafadda hawsha qaabka ay u shaqeeyaan hadday ahaan lahayd dhinac kasta waxaan la kulmay adiga wariyaal aad u fara badan inta meesha joogta sidoo kale waxaan kormeer xitaa ku sameeyay xarumaha ama isteeshinada ay ku leeyihiin goobtaas oo maalin kale ayaa waqtigaas ka dhigtay si aan u ogaado duruufaha kala duwan ay ku shaqeeyaan runtii waxaa iiga baxay waxyaalo fara badan maanta waxaan hayaa xog igu filan oo aan uga warrami karo wariyaasha ku nool deegaanada Galmudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo qaabka ay u shaqeeyaan waxay iiga warbixiyeen runtii xaaladda ay ku shaqeeyaan dhinac kasta waxaan ku baraarujiyay ilaa iyo xad bal inay ka qayb qaataan maadaama dadaallo nabadeed magaalada Gaalkacyo ay ka socoto in ay iyagu horseed u noqdaan maadaama meediyaha mar walba ama saxaafadda looga baahan yahay inay horseed u noqoto arrimaha nabadgelyada dadaaladaas socda oo magaalada Gaalkacyo ka socda inay qayb ka noqdaan arrintaana way iga qaateen oo way iga aqbaleen arrinta inay ku shaqeyn doonaan horeyna ay ugu shaqeyn jireen arrinta marka laga soo tago waxaan wax iska weydiinay arrimo fara badan baahiyaha ay qabaan waxay ii sheegeen inay u baahan yihiin inay helaan tababaro xirfadooda kor loogu qaaday taana ay uga fadhiyaan wasaaradda warfaafinta Galmudug arrinta runtii markaan eegay waa arrin muhiim ah oo loo baahan yahay in wasaaraddu ay qabato baahidaasna ay daboosho ka wasaarad ahaanna arrimaha naloo egmada ay qayb ka tahay waxaan u ballan qaaday amaba u ballan qaadnay ka wasaarad ahaan in arrimahaasi aan daboolno baahideeda isla markaana albaab kasta aan u garaacno sidii loo horumarin lahaa saxaafadda deegaanada Galmudug sidii loo horumarin lahaa waxyaabaha ii dhiman oo ii qorshaysan waxaa ka mid ah in mar kale aan la kulmo saxafiyiinta ku nool deegaankan marka la yiraahdo gobolkan Galgaduud oo qorshaheeda ayaa iyadana noo socda waxaan rajaynayaa in maalmaha soo socda iyaguna aan la kulmo si aan u ogaado baahiyaha dhabta ee meesha ka jira maxaad is leedahay wariyaasha ka howlgala marka Galmudug marka la kulantay caqabadaha jira ay ku sheegeen waxna aad ka ogaatay maxaad is leedahay waa laga qaban karaa rajo aad u fara badan ayaan ka qabnaa in aynu gaarsiino markaad eegto meesha la rabay ilaa iyo xad waxaan ka qabnaa baahiyaha ugu badan ay qabaan waxaa ka mid ah inaysan helin fursado xirfadooda kor loogu qaadayo waa baahida koowaad in shaqo abuur fara badan ay helaan iyo xuquuqaad ka maqan wariyaasha waxaan ognahay in isteeshinada ay ka shaqeeyaan aysan inta badan ka helin mushaaraad ku filan waxay ka dalbadeen wasaaradda in shaqo abuur ay u samayso isla markaana ay keento TV-gii Galmudug oo markaa wasaaradda looga fadhiyo iyo maamulka iyo raadiyaha intaba taa waxay keenaysaa in wariyaal fara badan ay shaqo abuur ku helaan halkaana ay ka howlgalaan kana shaqeeyaan xuquuqaad fiican oo ku filanna ay helaan taana laftigeeda dadaalkeeda waa wadnaa waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha ay iga dalbadeen oo runtii ay noo sheegeen waxaa ka mid ah
in ay u baahan yihiin in ay ka helaan wasaaradda sida wada shaqayn aad u dhow iyo xeer markaa saxaafadeed oo muhiim u ah in xeerka saxaafadda galmudug ay iyagu laftigooda xataa ay helaan xeerkaas waa su'aalan ka weydiinaya waa u soo noqon doonaa waxaan rabaa in arrinta ka dhawaajisay ee ah xagga xuquuqda wariyaasha idaacadaha FM-yada ah ama localka ah dadka gudaha la hadla ee ku yaala deegaanada galmudug ama Soomaaliya dhanba caqabad weyn ah haysata oo ah xagga xuquuqda wariyaha ka shaqeynaya waxa laga yaabaa wariyihii inuu sanad ama ka badan uu idaacada ka shaqeynayay inuusan wax xuquuq ka qaadan laga yaabee xuquuq yar oo uu heli lahaana in si musuqmaasuqa dadka markaas madaxda ka ah idaacadaha ama inay u isticmaalaan wariyihii markaas inuu halkaas dib u dhac weyn noloshiisa ay ku noqoto xataa arrintaas see ula dagaalami kartaan wasaaradahan arrintaas horta aad ka dhawaajinaysad sax weeye waa mid meesha ku jirta oo inta badan wariyaashu waxay inta badan maaragtay jecel yihiin bal in ay helaan xuquuqaad ku aadan dhinac kasta marka la eego iyaga dhexdooda hanaan ay u shaqeeyaan jira qaabka ay u shaqeeyaan iyo duruufaha kala duwan ay ku shaqeeyaan ma aha duruufo markaa ka faala qaadi kara noloshooda wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay inuu helo warar wuxuu xaq u leeyahay inta badan inuu deegaanada uu ka gudbiyo warar muhiim ah oo loo baahan yahay arrimaha marka ku soo laabanaya waxay tahay wariyaha in noloshiisa uu inta badan maaragtay waxyaabo ku filnaan kara uu helo xeerkan marka la keenayo kale wariyaasha mararka qaarkood dhinac kasta ka qayb qaadan karaan kicin bay ka qayb qaadan karaan barnaamijyo badan ka qayb qaadan karaan xeerka laftigiisa waxaa qayb ka ah wariyaasha qaabka ay ku heli lahayn xuquuqaadkooda oo dhammaystiran ayaa qayb ka ah in xarumaha laftigooda ay ka howlgalayaan ay ahaadaan xarumo mar walba ilaalinaya wariyaasha xuquuqda ay ku leeyihiin muxuu ahaa markaas stationka uu ka shaqaynayo runtii marka waxyaalahaas oo dhan wasaaraddu waxay u timid waa wariyaasha waxa ay u shaqaynaysaan waa maaragtay waa saxaafadii galmudug sidii u soo nooleyn lahayd marka inagu waxaan mar walba diiradda saari doonaa in saxaafadda galmudug ay noqoto saxaafad dhinac kasta ka dhammaystiran isla markaana baahiyadeeda meelaha ku wajahanna la daboolo taana waxay ku imaan kartaa wada shaqayn dhex marta wasaaradda iyo saxafiyiinta ku nool deegaanada galmudug intaba waxaan ognahay inaysa xeer ama media law oo galmudug aan soo diyaarsanayn haddii uusan diyaarsanayn caqabad weyn ay ku noqonayso hab dhaqankii iyo shaqadii ama xiriirka ka dhaxayn karay maamulkii iyo wariyaashii madax bannaana marka arrintaas labada sano oo adiga ka horeysana lama soo diyaarin maxaa isleedahay imisa lagu dhammayn karaa hawshaas maadaama ay muhiim tahay xeerka saxaafadda qaranka ayaa macnaha diyaarsan oo in badan aad ogtihiin in horeyna wasaaradda warfaafinta federaalka ay horey u qabatay welina maaragtay hindis sharciyeedkaas uu hor yaallo golaha wasiirada ilaa iyo xad aan la ansixin waxaa jira dadaallo aan wadno in badan waxaan diyaarinaynay xeerka saxaafadda galmudug ka hor inta aanan aniga halkan wasaaraddan wasiirka ka noqon laakiin waxaa jiray inaan agaasimo guud ka ahaa xilligaasna anigii wasiirka iyo wasiir ku-xigeenkaba aan iska warqabnay isla markaana xilligaas ay jirtay in aan diyaarinayn xeerka saxaafadda galmudug wuu diyaarsan yahay wuxuu u baahan yahay keliya akhrinteeda in workshop aan keenno halkaa ay ku aqriyaan ku diyaargareeyaan laga soo qaybgeliyo saxafiyiinta ku nool deegaanada galmudug oo dhan aragtidooda ka dhiibtaan markaas kadib la horgeeyo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka sidaana lagu ansixiyo rajada aan ka qabno waxay tahay in waqtiyada ugu sokeeya ee ugu dhow ee ugu macquulsan arrintaa ay noo fusho wariyaasha runtii waxaan usoo jeedinayaa in ay arrintan ku saabsan saxaafadda ay u dhabar adeegeen inay usii dhabar adeegaan waxaa u dhiman waa wax yar mar walba xirfadda ayaa muhiim ah in la fiiriyo balse muhiim maaha dhaqaalo waa iska imaan doonaa wariyaasha in xuquuqaadkooda ay helaan waa iska imaan doontaa marka wariyaasha waxaan u jeedinayaa in hawshooda ay sii labalaabaan inay ka qayb galaan xirfadaha ama barnaamijyada ama tababarada lagu qabto magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya kamida haddii loo heli karo safarro ku saabsan dhinaca dibadda waxyaalahaas oo dhan inay heli doonaan ayaan u rajaynayaa marka hawshooda inay sii labalaabaan ummadana ay u shaqeeyaan iyo deegaankooda taas ayaan ugu dambeyntii ugu baaqayaa cabdiraxmaan jaamac afrax helos wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta galmudug oo aan ku wareysanayay
xarunta madaxtooyada galmudug ee magaalada Cadaado isla markaana aan ka wareysanaynay arrimaha warbaahinta galmudug